mahad celin intii ka soo qayb gashay soo qaban qaabisay ajirka aan leedihiin hal xadiis aan idinku sheegayaa hadda waxaan u taaganahay Falastiin oo Masjidul Aqsa difaac uga jirta oo naftooda iyo maalkooda iyo caruurtoodaba horeen ajirka ay helayaan saydin la tahay intuu leeg yahay muraabidiintaas waa ajir aad u weyn oo Nabi sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlayay tobanka bari Carafa uga horeysa wuxuu yiri maalmahan shaqada la sameeynayo Ilaahay agtiisa wax looga jacayl badan ma jiro markaas waxay dhahan jihaadka xataa miya markaas uu yiri jihaadka xataa ilaa qof naftiisa iyo maalkiisa intuu la baxay aan waxba la soo noqonin ka asaga wax gaaraya male marka reer Gaza muqaawimiinta meesha ku jira waxay taagan yihiin naftooda iyo caruurtooda iyo haweenkooda oo waxba la soo noqonin ay dagaal ku jiraan ajirka ay helayaan marka waad garan kartaan inta uu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam asoo qaswa aaday ayaa waxa jiray dad ayna u suurtagelin inay meesha tagaan ama xanuun haya ha ahaado ama duruufta kale cudurdaarka u sameynaysa ha ahaato markaas wuxuu yiri inna bil madinati rijalan waxaan madiina kaga soo tagnay rag ma sirtum masiran wala qada'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al'udhru madiina waxaan kaga soo tagnay dad meel kasto aad marteen in la jiray waxa u diiday inay meeshan imaadaan cudurdaar ay leeyihiin marka hadaan isweydiino Soomaali hadaan nahay soo uma ekin kuwaas inaan meesha tagno cudurdaar ayaa inoo diidaya meel aan u marna male hore ayaa loo kala xiray dadka muslimiinta isuma furno laakiin insha Allah ta'ala ayaga ayaa isufu furan doona xarkii lagu xirxireen ayaga googoyn doona ummad islaama oo xorana way soo bixi doontaa marka horta ajirkaas aad leedihiin oo Nabi sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamayo niyada inay saas ay tahay riwaayadna nabi wuxuu ku leeyahay wa fi riwaayatin illa sharakukum fil ajri marka maanta isu soo baxan hayaraysanina ha u malaynina dadka sida qaar ay ka dhigaan Falastiin maxaa naga galay arintu ma aha waxaan rabnaa illa sharakukum fil ajri ajriga inaan la wadaagno anagoo Muqdisho joogna ayaan rabnaa marka taas ku bishaaraysta dhanka kale maanta warbaahinta waa la kala saftay qoraalada waxa la isku hayaa maanta yaa gardaran yahuuda iyo Falastiin inta yahuuda la jirta waxay u dhigayaan inay yahuudu ay tahay dadka la dulminayo oo ayaga la dilaayo oo meel ay ku soo kaadiyaan la ayay u sawiraan ayagoo la og yahay yaa wax dilaaya yaa wax baabi'inaya yaa saayeelaya inay Falastiin yihiin marka social media warbaahinta oo dhan ayaa qof walba uu dagaal uga jiraa ummad walba marka taageeraheeda ayay garta siinaysaa marka inaga maadaama muslim nahay soo baxan aan soo baxayno waxaan isugu soo baxnay inaan qadiyadaasi caalamiyin in ay Israa'iil gardaran tahay dhulka islaameed ay haysato guri islaamay ay duminayso inaan muujino saan oo kale cid alla garab istaagta Falastiin waad ogtihiin oo lama jeclo waxa laga dadka qaar xataa haday ka soo qayb gali lahayn meelahan oo kale inay yiraahdaan Mareykanka ay arkay iyo waa yahuuda ay arkaysa iyo waxyaabahaas oo kale ah marka dadkaas ayaga aayadan aan isla akhrino ah oo Ilaahay uu leeyahay muslimiintii hore markuu tilmaamay jeeshul usra ciidankii Tabuuk yani waqti xanuunka badan ku soo aaday bixitaanka ay bixeen waxa la yiri wala yadauna mawdi'an يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين مركا وحاتين أنتم محسنون يا صوماليون محسنون آتين إلهنا أجر كين مضيع آية تاس ومن داس مركا أنكسو قبقية الدعاء سيدنا عمر رضي الله عنه أيا فري قدس مسجد الأقصى فريتانكا دعاء وهذا هبك الاستعمال أيو دعاء كخطرسن maxaa yeelay ducada ilaahay ay u jeedaa ilaahay haduu aqbalana inma amru ila arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sayyidina umar markii intuu sanfurin ka hor ducadii uu ku duceeyay ayaan anna ku ducaynayaa si furitaanka masjidul aqsa uu soo degdego markii idinka aamiinta igu kaalmeeya wuxuu yiri sayyidina umar radiyallahu anhu allahumma al'an kafarata ahli alkitab alladhina yasudduna an sabilik wa yukadhibuna rusulak ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين إلهي هو أقبله إننا نحن كد لنا وأن دعاء إسرائيل حالة أنه تلمامين السائل ما أنت فلسطين كسو أنتهي اللهم إنه قد تكالب عليهم الأعداء واجتمعوا عليهم اللهم اجعلهم في ضمانك وأمانك ثبتهم وانصرهم واربط على قلوبهم وتقبل شهيدهم وداوي جرحاهم وانصرهم نصرا مؤزرا اللهم اعتدى عليهم الغريب وخذلهم الغريب وأنت مولاهم ونصيرهم
وأنت يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وما سنتين كسوق قيبك كسوق قيب قشان هذا نالكاس ينوح رنياه خدنا آذينا ويلش